muuse carab dugsiye ayaa ballay uu qotay beertiisa ugu deeqay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanka sararka ee galbeedka magaalada Boorama kuwaas oo ay soo food saartay xaalad adag oo biyo la'aaneed. muuse carab oo ugu horreyntii ka hadlay deeqdan ayaa ku baaqay in bulshadan ballaaran ee deegaankan laga taageero biyo xidheenno kale ay munaafacadsadaan dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaankaasi. waxaanu yidhi waa sararkii dababuureed weeyi weydika arkayo ummadda iskugu timid halkan mashruuc baan ku leenahay beera iyo digaagan ku dhaqo waad arkaysiin biyaha halkan jooga waxaan u qotay beerta maxluuqii halkan ilama Itoobiya ku noolaa waxa harraad ba helay waxaan qasam nagu noqotay inaan muddo 4 sanadoodaba 4 sanadood u dambeysay xilligan oo kale waxaan u furnaa biyaha baan u furnaa dadkaasi si ay uga madaragtay abaan iyaga dadka iyo dunyaduba dhibaato weyn baa ka taagan wadarkiisin waxa balliga yar xoolo iskugu imanaya 6 aroornimo ilaa 6 galabnimo sidaa bay xooluhu ku yihiin oo isku weydaaranayaan meeshani sararka dababuureed magaalana maahan miyina maahan 10 kiiloomitir uma jirto magaalada Boorama sidaa baa loogu haraadan yahay garan maayo iyo maamuladuba meel ay ku maqan yihiin anigu garan maayo dhibaatada baa ka taagan indhihiinaad ku arkaysiin waa magaalada Boorama dhexdeeda kuwa ka fogna maxaad u maleynaysiin abaaraa dhacay xoolahaasi waxay cunaan ma arkaan dhulka waad arkaysiin abaarta ka joogta gurmad bay u baahan yihiin halkan xitaa anagu intaaban awood u helay inaan dadkan u qodno oo beerteeda ugu tala galay baan markii imika ayaan xaaladii aan aragnay waad arkaysiin oo geedii babaygaygii waxa way ka raadan yihiin waan ugu tala dadka baan u sii dayno bil aadan baaba dhimanaya iska xabaan baan nidhi balagan ina weyneynaan doonaynaa shabag lagu xidho mooteer xitaa xoolo way dhex galayaan way ninka arkaya si u dhex galayaan dhooqada ina silig lagu xidhay hayd awoodda noo sigi miga karweyday dhalinyarta ku daadanayso oo cabsi kala qabnaayo waashmaan baan dhigay imika mishaaraq dadka deegaanka oo hadalkays ka daba qaatay ayaa muuse carab uga mahad celiyay ballaygan uu ugu deeqay waxayna xukuumadda iyo dadka qurba joogga ee deegaankan ka soo jeeda ugu baaqay inay ka taageeraan biyo qabadiyo kale waxaana yiraahdeen waxa weeyaan halkani waa ballayga aad arkaysaan waxa loo qoday beer horta marka hore aan waxaan ahay tuulada sararka magaceygana waxa la yiraahdaa Rashiid Bashiir Awno waxa weeyaan ballayga waxa qotay ninka la yiraahdo hajiga la yiraahdo muuse carab wuxuuna u qotay beertiisa inuu ku waraabsado geedana ugu beerayay inuu ka dhigo bustaan markay waayeen ummadii meel ka cabaan dababuur oo dhan soo jeedada buuraha gebi ilaa Itoobiya xadka ka talowsan waxay ka cabayeen halka maanta aad arkaysaan halkaasaan isugu nimaadnaa de waa meesha ay arkaysaan oo nama qaadaysa way qaadi kari laaday nafina halka bayna keentay deecidii wax noo qabanaysa dawlad iyo dadweyne waxaan u baahanahay wax la noo qabto saasaan u dhibaataysanahay waxaan nahay dad kamida halkani waxa weeyaan waxaan anigu gudoomiyaha beeshan sararka ballayga adeerkiisina waxa weeyaan waxay shaqotay nin wuxuu kolkii hore u qoday beer kolkii uu arkay ummadii deegaanadan ilaa 12 beelood oo meel ay ka cabaan la sida u jabsan yihiin ummadaas ayuu u daayay oo uu yiri war ummadani baaba aniga iga daran ha cabto ummadaas ummadii halkaas ay isku tibiday meel kale ka cabto oo wax laga daro waa la waayay abaar dhulka aad bay u ballaaran tahay ha ballaanaatee waxa ka dararay biyo dawladda Soomaaliland ka tirsannahay iyo dawladaba waxaan u codsanaynaa in biyo ballaarin kana la noo qodo wixii kale ee la nagu dari karaan ballayo intana la noo ballaariyo inta awday isagu tamartiisu ay noqotay maahayna wixii kale la noo ballaariyo biyo badan halkaan ka helo dadka cafaa ummadda meesha joogta ballaaran oo aad u ballaaran oo aad u weyn waa ilaa 15 beelood waxa halkaan isku yimid oo ummadii hada noo qodo aan ka keenay hadii alla ka dhigo shabeelley ayaan ka keenay ka soo arooriyay geela waxaan soo arooriyay ballayga muuse carab ayaan soo arooriyay isaga noo qoday khayr Allah siiyo waanu mahadnaqaynaa beertiisu nooga qoday uu beerta u qotay bustaanbu ugu qotay imikana hadii alla ka dhigo xooluhu u sii daayay 4 sanadoodba iyo ummadda kolkuu ka fajacay iyo u sii daayay
dadkii oo jabsan marka waxaan leenahay dawladdu iyo nala soo gaaraan haddii alla ka dhigo caawimo degdega ayaan u baahannahay isagana khayr allah siiyo waan u ducaynay fulfulada hoosteeda yaa ka soo aroorigeeda marka hore horta waxaan mahad u celinayaa odayga balligaa noo qoday ee Muuse Carab yaa mahad u celinayaa ee waxaasoo halaaqoon maanta ka cabayaan ee arkaan arkiis ilaa xasabeyle ilaa shabeelle ilaa iyo halkaa iyo shahadaley ilaa halkaa iyo Itoobiya iyo halkaa iyo Tulubihiba waa laga cabayaa waxa weeye markaa dadweynuhu way arkayaan meesha waxa odaygaas balliga wax loo qoday inta ay beertiisaas loo qotay haddana adduunka Ilaahay baa isku yimiday meesha dawladnimo wali ma soo gaarin bixi bal dadkuna ha arko oo dadka waxa la arko wali arkaya ilaa dadka waxa meesha cabaya ee halaaqoona marka halaalka dadka waxa laga qabto meesha gargaar xoog la doonaya hooyo waa ku jabeen hooyo cabaan biyaha mooyaan biyaha xaladaas ay hayaan marka wax kale oo meeshii yaalo jiray biyaha waxaan laga soo xagarto ha shaawana halkaas ay mas'uuliyad biyaha odayga Muuse Carab oo mahad celinaa oo intaaba maanta aan dadka soo gaarsiiyay oo intaaba maanta lagu joogaa dhaaminayo xoolahana waniga arkaya waxa de sida biyaha iyo xoolaha iska dhex cabayo waa biyo la'aan dhulka ka dhaca marka inaad caawisiin baan niga codsanayna wada soo gaadhaan haraad baa jira kuleyl baa jira abaar baa jirta inaadna soo gaadhin baan niga codsanayna halka ilaa degman laqas xorof cunaqabad maad garanaysaa ilaa dhaxandega ilaa abuqays shabeelay dhammaan balligaas loo cabaa marka balligu 190 aad u fahmaasay odagaay aduu yar yahay makhluuqa inta laga dharma hayn karo marka insha Allah wuxuu qotay hayd beertan inuu ka waraabiyo maadaama saa u qotay kolkii dadweynaha haraado helay aduu ka soo dadweynaha iska cabiyo iska daayeysna marka uu ku maasay insha Allah 100% waxaan leenahay insha Allah in kan hadii wax la biiri karo hadii la helo insha Allah in la biiriyo istagnada soo galacsan karo iska galacsan insha Allah saasaan leenahay ballaygan hadarkaysaan waxa qotay Suldaan Muuse Carab wuxuu qotayna waxay ahayd geedweyn iyo geedyarba beertiisu qotay dadkii halqayuunkii ku noolaa Dababuur Boorama iyo inta u dhaxaysa xadka inta u dhaxaysa dadkii ku noolaa biyo la'aan baa heshay markuu ka yaabay dadkii biyihii u furay sirigii ku xidhnaa beertan ee uu ballayga ku xidhay uu ka sii daayay sirigii waa dhan walba oo laga baneeyay uu daayay dadkii marka waxaan leeyahay dawladda iyo dadweynahaba in dadkan la soo gaaro ku nool beeshan Soomaaliland ee galbeedka Boorama biyo la'aan ba'an baa haysata waxa weeyaan waxaan leeyahay biyaha dadka la soo gaaro acab iyo xoolihiiba biyaha dadka haysta waniga arkaya dadka sida dhooqada loodu ugu dhex jirto iyo dadkaba say jirkaanada ugu cabayaan waa kaayinka caagadaha jirkaanada lagu dhaaminayo acab iyo xoolaba waxa haysta marka waxaan leeyahay biyahan biyayow dadka loo qodo dhul baraago kana hal loo weyneeyo de kulay sidaan baro cabnaan bar walba 4 sano sidaan baa looga cabaay